عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada magacaygu Cabdiraxmaan halkan waxaan idinku soo gudbi doonaa muuqaalo badan oo ku saabsan arrimaha ganacsiga maanta waxaan ka hadlaynaa sida loo maareeyo maaliyadda ganacsigaaga sida qabiir oo kale fadlan jaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga maareynta maaliyadda ganacsiga waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee guusha ganacsiga si loo hubiyo in ganacsigu sii jiro una koro waa muhiim inaad si wanaagsan u maareyso dhaqaalahaaga halkani waxaa idinku soo gudbi doonaa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo maareeyo maaliyadda ganacsigaaga la soco dakhliga iyo qarashaadka marka hore waa inaad si taxadar leh ula socotaa dakhliga iyo qarashaadka ganacsigaaga isticmaal barnaamijyada xisaabaadka ama qalabka maaliyadda si aad u diiwaangeliso dhammaan lacagaha soo gala iyo qarashaadka baxa tani waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato halka lacagta ku socoto iyo sida loo hagaajin karo qarashaadka aan loo baahnayn labo samee miisaaniyad ama budget miisaaniyad wanaagsan ayaa kaa caawinaysa inaad si qorsheysan u maareyso dhaqaalahaaga u qeybi qarashaadkaaga noocyo kala duwan sida mushaarka shaqaalaha kirada agabka la isticmaalayo iyo suuqgeynta miisaaniyadda saxda ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad si wanaagsan u qorsheyso cash flow-gaaga sidoo kale inuu yaraado cash flow-ga badanaa waxaa la dhahaa qulqulka socodka cashka wixii soo galaya wixii baxaya waxay kaa saacidaysaa marka budget hadaa yeelatid ama miisaaniyad markaad dejisid inaad ogaatid waxyaabaha kusoo galaya waxyaabaha micno darada ku baxaya inaad joojisid okay saddex xisaabi lacagta ku saabsan cash flow-ga wanaagsan waa furaha guusha ganacsiga waa muhiim inaad si joogto ah u hubiso lacagta soo gasha iyo lacagta kaa baxda marka cash flow-ga uu caafimaad qabo waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u bixiso lacagahaaga una maalgeliso horumarka ganacsigaaga afar kaydi lacagaha dhammaan xitaa haddii ganacsigaaga u guulaysto waa muhiim inaad haysato qayb ka mid ah dakhligaaga kaydinta lacagta waxay kaa caawinaysaa inaad si xasilooni aad yeelato sidoo kale waxay kaa saacidaysaa ama awood inaad u yeelato inaad maareyso xaaladaha degdega ah suuqa isbedeli karo canshuuro cusub la soo kordhin karaa waxyaabo badan ayaa iman kara badeecadii qaali ku imaan karto sida covid oo kale ayaa iska dhici kara marka waxaad u baahan tahay kayd fiican inaad yeelato shan isticmaal tiknoolajiyadda xisaabaadka noocyadii ugu dambeeyay waxaa jiro shirkado badan oo bixiya software kala duwan oo tiknoolajiyadii ugu dambeeyay isticmaalaan sida barnaamijyada Odoo oo kale nooci ugu dambeeyay hada aad loo isticmaalayo dadka aad u baranayaan aad ku anfacaya horeyna waxaan u naqiinay QuickBook iyo Bigtree waxa la dhahayo Excel kana waxa waaye mid kale oo aan la iloobi karin waaye sida ganacsiyada yararka oo kale aad u isticmaali karaan aad uu ku anfacaya hada ganacsi yar tahay Excel oo kale aad ku anfacaya marka isticmaal tiknoolajiyadda xisaabaadka noocyada ugu dambeeyay waxayna ka saacidaysaa inaad si fudud u maareyso xisaabaadkaada tiknoolajiyadda waxay kaa caawin kartaa inaad si sax ah u diiwaangeliso maaliyaddaada taasoo yareynaysa qaladaadka oo aan la filin karin waxaa iska dhici karta adigoo wax ku xisaabsanaa mar una isbedelaan laakiin tiknoolajiyadda boqolkiiba 95 dhigana boqolkiiba 100 maadaama ay naftirka tiknoolajiyadda ay tahay ayad automatic ma isu xareynayso dabcan qofka xareynayo bil aadam okay daatada si ugu shuba ku xirantaa marka qaladaadna waa dhici karaa Soomaaliya saasay tahay ku dadaal mar walba inaad tiknoolajiyadaas aad isticmaasho lix la tasho xisaabiye ama qof ku xeel dheer arrimaha maaliyadda haddii aad cusub tahay maareynta maaliyadda ganacsiga waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iidaysato talooyinka xirfadlayaasha sida xisaabiyaasha ama la taliyayaasha maaliyadeed talooyinkooda waxay kaa caawin karaan inaad qaadato go'aamo maaliyadeed oo wanaagsan iyo inaad si hufan u fuliso qorshahaaga toddoba fahmista canshuuraha iyo shuruucda maaliyadeed ganacsatadu waa inay si fiican u fahmaan canshuuraha ay bixiyaan iyo shuruucda maaliyadeed ee ku saabsan ganacsigooda la xiriir xisaabiye si aad u hubiso inaad u hoggaansan tahay dhammaan shuruucda canshuuraha iyo khidmadaha la xiriira ganacsigaaga ka fogow khataraha laga yaabo inaad ku wajahdo haddii aadan si sax ah u raacin shuruucda dadkeena Soomaaliyeed kale dawladda sanadkan 2024 ama sanadkan 2024 si dhamaanayo xusuus rugtiyo kale arrimaha canshuur canshuurtaas waxaa la dhahay qof waliba wax ka kataba inaad ka qaataa boqolkiiba 5 dawladdu waxay raadaysaa haddii aad qofkaas boqolkiiba 5 aad ka qaadayso oo wax ka iibsado oo isdawmaraysa sameeysid ama number kale aad ku shubtid adhooti waxaad la kulmaysaa ganaaxaas
lacag ayaa lagu soo canshuurayaa $500 $400 $1000 wixii noqota lagu soo canshuuray ama lagu soo ganaxay. So $1000 ama $500 waxay noqonaysaa inaad akoonkii company aad ka bixisay ilaa ku qasbantaa waa adiga qofkii lagu dhahay ka bixi canshuurta ama ka qaad canshuurta lagu dhahay adaa bixin wayso maaha. marka mar walba ku dadaal inaad shuruucda maaliyadeed iyo fahmista canshuurta qofka ku qanci walaalow waxaan ani malihi amar dawladeed waay lacagta bixi ma fahanta. soo arintu waxay noqonaysaa in adiga lagu ganaxo sharci hadduu meesha u jirana oo laga xaq leeyahay waxaa wanaagsan mar walba inaad sharciga u hogaansantid. waxayna kaa saacidaysaa arrimo badan oo caqabad kugu noqon kara beri ka maalin inaad ka baaqsato. 8 dib u eeg maaliyadaada si joogto ah. fursadaha iyo caqabadaha ganacsiga waxay si joogto ah yani mar waliba isu bedeli karaan ama isu bedelaan because ma filin kartid suuqa adiga muxuu ku suuqa asiga ku xukuma. okay suuqa asiga ku xukuma shay adiga $100 kugu fadhiyo qof wuxuu ku fadhi karaa $90. shay adiga $105 ama $200 gadaysay qofkii wuxuu iska gadanaya $95 ama $3. soo marka yaa ku xukuma adiga suuqa mar walba ku xukuma. marka mar walba caqabadaha suuqa ka jiro kale ugu dib u eegis joogto ah ku saabsan maaliyadda ganacsiga waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato meesha aad ka liidato iyo meelaha aad horumarka samayn karto. waxaa muhiim ah inaad si joogto ah ugu fikirto siyaabaha aad ku kordhin karto dakhligaaga sidoo kale inaad hoos u dhigi karto qarashaadkaaga waa muhiim. 9 iska ilaali deynta badan. inaad isticmaasho deyn si aad u maalgeliso ganacsiga waa mid ka mid ah farsamooyinka ganacsiga caadiga ah. si kastaba ha ahaatee waa muhiim inaad ka feejignaato deynta badan maadaama laga yaabo inuu sababo culis maaliyadeed. u isticmaal deynta si taxadar leh oo hubso inaad awoodi karto inaad si fiican u maareyso lacagta aad soo amaahatay. 10 samee go'aano maaliyadeed oo xooggan. go'aanada maaliyadeed ee wanaagsan waxay ku saleysan yihiin xogta iyo qorsheynta saxda ah. ka fogow go'aan qaadashada degdeg ah ee ku saleysan dareenkaaga mar walba iyo ku hogaamin. waa fahamsamaan laakiin anaga Soomaalidu waxa saga badan dhalinta Soomaaliyeed dareenkeena mudkeena aad u sareeya waxa jecelnahay wax walba si dhaqso leh ku dhacaan. hadii laakiin shaygan igu soo orod maahan waxa karinaysa cunto kale maaha waa ganacsi business waa go'aan degdeg ah qaadid ama dareen aad ku saleysid adaa ku go'ay. hadaad laakiin waxaad u dejisid oo deesin rabaad u qabatid waqti si qaadato 1 sano 2 sano 3 sano iska qaadato ma fahant. laakiin hadaan dareen ku saleyno aad u adagtahay marka mar walba inaad ka fiirsano waa u fiirso dhammaan macluumaadka qiimeyn suurtagalnimada khataraha iyo faa'iidooyinka kadibna qaado go'aanka saxda ah. ugu dambeyn maareynta maaliyadda ganacsiga waa mid muhiim u ah ganacsiga si loo hubiyo in ganacsigaagu uu sii jiri karo ama uu horumari karo. qorsheynta keedinta iyo la socoshada dakhliga iyo qarashaadka waxay kaa caawinayaan inaad noqoto ganacsade guuleysta. haddii aad maareyso maaliyadaada sida khabiir oo kale waxaad awoodi kartaa habraac dhaqaale oo aad keenaya guusha ganacsigaaga. inaan isla fahanaa rajeynaa insha Allah muuqaalkan wax badan aad ka faa'iideen. magacaygu Cabdiraxmaan please waxaan ka codsanayaa akoonka ama channelka inaad subscribe saarto insha Allah muuqaalo badan oo xiiso badan oo arrimaha ganacsiga ku saabsan ayaan idin soo wadaa. soo dhawaada wax allaala wixii fariimo ah waxaad igu soo diri kartaan emailka sidoo kale commenting waad igu dhaafi kartaan insha Allah. thank you so much.